عليكم ورحمة الله وبركاته. soo dhawaada bulshooyinkuna soo dhawaada channelkeena Samawada Films. waxaan in walaalayaal maanta inii wadnaa mowduuc xiiso badan. fadlan haddaad ku cusub tahay channelkeena subscribe garee gambaleelkana furo si aad ula socoto barnaamijyada aanu soo gelino xilli kasta iyo goor kasta. mahadsanid walaalayaal. waxaan maanta ka hadlaynaa mowduuc aad iyo aad u qaali ah, mowduucaas oo ah ganacsiga ama waxa loo yaqaan business afka qalaad lagu yiraahdo. sidoo kale waxaan iska weydiin doonaa ilaa dhowr qodob. waxa weeye aan halkan rabnaa inaan ku qeexno door leedmo anoo bahda Samawada Films ah. waa maxay ganacsi maanta? ganacsigu waa hab kaas oo ay bulshadu u kala adeegsato u kala bedelato alaabto ayagoo adeegsanaya ama isticmaalaya siyaabahan hoos ku xusan. laba qodob oo muhiim ah ayaa sidoo kale halkan laga soo qaatay. waxa kamid ah alaab lagu bedeshay lacag iyo alaab lagu bedeshay alaab. waxa la yiraahdaa sidoo kale qofka bini'aadamka wuxuu alaabtu haysto ma aha alaabta qofka kale uu hayo ayuu u baahan yahay. sida awgeed waayadii hore ayaa la isticmaali jiray taariikhii hore, balse hadda waxaa la isticmaalaa alaab lagu bedeshay lacag. walow laga yaabo in la helo alaab lagu bedeshay alaabna laakiin aan si badnayn. haddaad tahay ganacsade maxaa lagaaga baahan yahay adiga? waxaa lagaaga baahan yahay ilaa dhowr qodob oo muhiim ah. laba qodob ayaan isna sidoo kale ka soo qaadanaynaa. in aad taqaan xisaabta ugu yaraan 4 xisaabfal sida bala ku darta, ka jarta, ku dhufada iyo u qaybida iyo jajabka. aadna garan kartaa faa'iido iyo khasaaro wixii ku soo gaara. waa inaad isxisaabisaa adiga nafsadaada aad xisaabisaa. xasabu anfusakum qabla an tahasibu arab. sidoo kale waxaa halkan aan inoogu diyaariyay qodob kale oo asna aad iyo aad u qaali oo saddexaad. waa qodobka la yiraahdo sideen ku horumarin karaa ganacsigaaga. waxaad ku horumarin kartaa ilaa dhowr qodob oo muhiim ah. waxaana kamid ah waxaan ka soo qaadanay ilaa 9 qodob. waa inaad taqaan sida dadka loo soo jiito, attractive of people. waa inaad garan kartaa sida dadka loo soo jiito oo soo jiidasho badan aad samayn kartid. in aad kala taqaan faa'iidada iyo khasaarada, waa advantage iyo disadvantage. waa inaad kala garan kartaa. sidoo kale inaad xisaabaad ka fahansan tahay. xisaabtu waxay u baahan tahay calculation. waa inaad fahansan tahay oo aad jajabka iyo ku darta iyo ku dhufada iyo qaybida iyo waxa dhan aad xifdisantood garan kartid weeye. sidoo kale waxaa lagaaga baahan yahay wax la yiraahdo dulqaad. qofka ganacsanaya qofka ku imanaya shay buu ka baayacaya, waa suuro gali waayaysa inuu ka gato ka tagaya. ha ka xanaaqin, ha ka xumaan. maanta waxa laga yaabaa in wax laga gadan waayo, waxa ka xumaan. marka waxa laga baahan yahay qodobka afraad oo ah dulqaad. sidoo kale waxa laga baahan yahay dhoola cadayn. markasta inaad faraxsan tahay, happy waa inaad tahay oo aad faraxsan tahay si dadku ay kugu soo aad u soo jiidatid. sidoo kale waa inaad samir badan tahay. samirku in allaha ma'a saabiriin bilaahi ayad qur'aan ku leeyahay kuwa samra ayaan macooda ahay. marka waa inaad samir badan tahay weeye. sidoo kale in aad dariska ilaaliso xuquuqdooda. darisku xuquuq ayuu isku leeyahay, qofka dariskaaga xaq ayuu kugu leeyahay. marka waa inaad ilaalisaa si uu mataqaana ilaahay subxaanahu wa ta'aala kaaga raali noqdo. dariska waa waxa kaliya ah oo markii qodobka labaad oo la isweydiiyo qabriga. waa inuu labiskaagu qurxoon yahay ama uu qurux badan yahay. qaabka aad u labisatay waa inuu qurux badan yahay oo labiskaagu qurux badnaado ma sha Allah. sidoo kale qodobka koobaad oo aan ilaawo ahaa waa in aad alle subxaanahu wa ta'aala ku xiran tahay oo aad markaste xasuusnaato xaaraantii xalaashana aad kala garanayso, aadna ka ilaashato wax xaaraana inuu ka gal ganacsigaaga si aanu kaaga guban ama uusan kaaga khasaarin. aad iyo aad baad mahadsantihiin. waad ku mahadsantihiin dhageysigiina aad dhageysateen. fadlan subscribe gareeya channelka, gambaleelkana furta, like-tana ha ka ilaawina. waxaan rajaynayaa inaad si fiican u fahanteen. haddii ina fahminna waad daawan kartaan, waadna dhageysan kartaan. markastana wuu idin yaala. aad iyo aad baad mahadsantihiin. assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu.